haddii aad ku cusub tahay channelka Somali Universe fadlan subscribe leh rukumana batanka notification-ka si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ugu dambeeyay aan soo upload kareyno mahadsanid barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 5 waxyaalood oo ay gabadhu si sir ah u sameyso laakiin aan cidna ka warhayn isticmaalka shaashada taleefanka miraayad ahaan gabdhuhu waxa ay jecel yihiin markasta in ay jeegarayaan quruxdooda meel walba oo ay aadayaan xilli kastana boorsadooda waxa aad ku dhex arkaysaa miraayad hadda arinku sidaa waa uu ka duwan yahay maxaa yeelay gabdhuhu kuma qasbana inay isticmaalaan miraayad taleefanka gacanta ayaa noqday mid buuxiya booska miraayada taleefankana kuma eka hadal oo kaliya maxaa yeelay kaamirada taleefanka ayaa waxa ay tahay mid ka mid ah waxyaalaha ay dumarku ugu jecel yihiin ayna mar walba isticmaalaan shaashada taleefanku waxa ay bedel buuxa u noqotay booska miraayada waxa ay mar walba ku mashquushaa taleefanka iyo kaamirada iyadoo ay u bogayso quruxdeeda haddii aad baarto mid ka mid ah taleefanada gabdhaha waxaad ku arkaysaa sawiro fara badan oo selfie ah ku qaadida xabadka waxyaalaha qaar boorsada gacanta ayaa ah astaan gaar u ah gabdhaha iyadoo ay gacanta ku qabsadaan meel walba ay aadayaan mar walba waxay u arkaan in boorsada gacanta lagu qabsado qurux iyo jaakeyn dheeri ah sidoo kale waxa ay ku qaataan waxyaalaha qaar sida mobilada iyo sidoo kale roosotooyinka laakiin gabdho qaar ayaa aaminsan fikirkaasi fikir ka duwan oo ah in boorsadu ay tahay xayiraad dheeri ah taa beddelkeeduna waxa ay sameeyeen in waxyaalaha muhiimka ah ay ku qaataan xabadka sida furayaasha kaararka aqoonsiga lacagaha roosetada iyo sidoo kale mobilada qorsheynta habeenka aqalgalka xafladda aqalgalku waa riyo ay ku riyooto gabar kasta laga soo bilaabo yaraanteeda gabadhu ayadoo aan fahansaneyn macnaha guurka ay qorsheynaysaa aqalgalkeeda aqalgalku waa habeenka ay gabar kasto ka fikirto cimrigeeda oo dhan gabdhaha intooda badan guurkooda ay qorsheeyaan xilli hore xitaa haddaysan gaarin ayada oo yar ayay bilaabaysaa in ay booqato website-yada fiidiyoyada ama joornaalada ka hadlaya guurka waxayna sameynaysaa in fiidiyoyadaas iyo sawiradaasi ay aragtay ay ku kaydsato mobilkeeda si ay u xafidato ayna mar walba ugu fikirto heerka ay ku gaari lahayd ama xilliga ay gaari lahayd habeenkaasi quruxda badan self camera iska qaadida sawirka hore ee kaamirada mobilka ayaa waxa uu noqday mid ku faafa gabdhaha dhexdooda gabadhu waxa iska qaadaysaa sawir selfie ah oo qurux badan kaas oo muujinaya in maalinkaas uu yahay maalin wacan tusaale hadda haddii aad baarto gabar mobilkeeda inta badan waxaad ku arkaysaa sawiro selfie ah oo intooda badan aan ku habboonayn in la soo geliyo baraha bulshada sawiradaasi waxay isugu jiraan gabadha ayada oo ku jirta xaalad fiican ama xaalad xunba laakiin gabdhuhu intooda badan waa ay xafidaan sawirada xilli xun ay ku jiraan gabdhaha qaarna ma u xisaabsanaba sheekadaas ku qiiroonta filimada gabdhuhu intooda badan waxa ay caan ku yihiin in ay ku qiiroodaan ama ay saameyn ballaaran ku yeelato go'aanada caadifada ximbaarsan iyo kuwa murugada leh inta badan gabdhuhu waxa ay xiiso badan u qabaan in ay ooyaan laakiin inta badan kuma ooyaan dadka agtooda gabadhu marka ay kaligeeda tahay ayay indhuhu furataa oo ay ooysaa inta karaankeeda ah inta badan haddii aad gabdhaha wareysato ama aad weydiiso in ay ku ooysay filin jacayl ah oo qiirad leh oo ay fiirsatay inta badan waa ay inkiraan mana qiranayaan meesha ay ka jilcan yihiin marka ay fiirsanayaan filimaanta romaansiga ah laakiin xaqiiqdu intaas waa ay ka duwan tahay gabdhuhu waa ay ku murugoodaan sheekooyinka romaansiga ah sidoo kalena sheekooyinka jacaylka murugada leh aad ayay u saameysaa arrintaasina waa arrin ay dabiici u yihiin gabdhaha haddii aad ku cusub tahay channelka Somali Universe fadlan subscribe leh rukumana batanka notification-ka si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ugu dambeeyay aan soo upload kareyno mahadsanid